waxaan joognaa saaxiibayaal dhammaadka sanadka 2025 sanadkani waxa uu ahaa sanadkii iigu fiicnaa intii aan ku jiray Somalitech waxaan sameeyay dhaqaalihii ugu badnaa waxaan helay fursadihii ugu fiicnaa ee aan heli karay haddii ay tahay muuqaaladaan idila wadaago maadaama aan ahay macallin shaqadeedii fursadahayga macallinimo iyo sidoo kale maadaama aan ahay macallin online ah oo koorsooyin bixiya koorsooyinka ugu fiicnaa ee aan diyaarin karay ilaa intaan gaarsiin karay haddaba saaxiibayaal waxyaabaha aan idila wadaagay oo dhami waxay bilowdeen hal maalin oo ka mid ahayd sanadkii 2019 oo ahaa sanadkeygii koowaad ee jaamacadda oo aan qaatay go'aankii ugu horreeyay oo ahaa in aan sameeyo kanaal YouTube ah haddaba saaxiibayaal sanawaadka dheer ee aan ku jiray baraha bulshada waxaan soo maray waqtiyo aad u kala duwan iyo marxalado kala duwan waxaan soo bartay xirfado aqoon iyo waxyaabo kala duwan oo aan kasbaday waxaan isku soo dayay waxyaabo fara badan haddii maanta halkan aan joogo iyo maanta waqtigan aan joogo la iigu yiraahdo taariikhda hore oo dhan waa la tirtirayaa waa inaad mar labaad bilowdo waxaan baran lahaa 3 xirfadood oo kaliya waxaan rabaa muuqaalkan inaan kula wadaago 3 xirfadood iyo sababta qof kasta oo muuqaalka hadda daawanaya ama muddo kadib daawanaya ay tahay 3 xirfadood inuu barto xirfadda koowaad ee saaxiibayaal aan idila wadaagayo waxa weeye waa artificial intelligence ama caqliga macmalka ah isbedelka ugu badan saaxiibayaal ee digital ahi maanta waxa uu ka dhacaa artificial intelligence markii uu horeeyay ee aalad AI la arkay waxay ahayd dhamaadka sanadka 2022 maanta aan joogno 2025 isbedel kasta waxa hogaaminaya waa AI waa caqli macmal ah haddaba aaladaha AI waxaad uga faa'iideysan kartaa saaxiibayaal marka aad fikradaha curinayso marka aad diyaarinayso muuqaalada iyo shaqada marka aad dad la xiriirayso ee aad fariimo diyaarinayso marka aad wax baranayso oo aad wax weydiinayso dad badan oo aan aniga maanta kamid ahay saaxiibayaal waqtigayga maalinlaha ah waxa aan geliyaa aaladaha AI isticmaalkooda in ka badan inta aan geliyo isticmaalka Facebook iyo Instagram-ka oo la isku daray si maalinla ah haddaba saaxiibayaal waqtigan aan joogno isbedelka ugu dhac badan wuxuu ka dhacayaa AI-ga qayb kasta oo kamid ah digitalkana maanta AI ayaa wax ka bedelaysa oo qaabkii hore u yaalay qaab ka duwan ka dhigaysa haddaba waqtigan aad barato AI-ga aad ayay muhiim u tahay waxaa jira muuqaalo tiro badan oo YouTube-ka ku jira oo aad adigu si iska ah waqtigaaga iyo dadaalkaaga aad oo bixinaya baranayso waxaa jira koorsooyin badan oo laga diyaariyay AI-ga oo aad xirfadda dhan ee AI-ga hal mar isku qalabaynayso soo haddii aan maanta anigu heerkan aan joogo dib u bilaabi lahaa inaan noqdo qofka aan maanta ahay waxaan ku bilaabi lahaa xirfadda AI-ga soo xirfaddaas waa ta koobaad xirfadda labaad saaxiibayaal ee aan maanta haddii aan u baahdo inaan barto aan bilaabi lahaa waxa weeye waa digital marketing saaxiibayaal waa xirfadda ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad barato si aad guud ahaan u fahanto dunida internetka waxa ay tahay saaxiibayaal waxa in badan oo idin kamid ah ay maqlaan internetka dhaqaalaha laga sameeyaa hase yeeshee haddii lagu weydiiyo sidee internetka dhaqaalaha laga sameeyaa waxaa laga yaabaa inaad ku ogaato internetka dhaqaalaha laga sameyn karo mooyaane inaanad wax kale ku dari karin laakiin dhammaantiin waan naqaanaa qaabka dhaqaalaha looga sameeyo nolosha inteeda kale caadiga ah ee goobaha laga shaqeeyo iyo ganacsiga iyo wax la midka haddaba xirfadda digital marketingku waa xirfadda kaliya ee internetka iyo fursadihiisa iftiinkuugu qabanaysa ama ku iftiiminaysa internetka marka la joogo erey bixinaa la isticmaalaa oo micno leh sida impression click through rate engagement retention waxyaabahan aan sheegay oo dhan waa erey bixino haddii aanad garanaynin meesha aad ku aragto ma fahmaysid waxa meeshan ka muuqanaya iyo waxa meesha yaalla waxa uu yahay haddaba xirfadda digital marketing ma aha xirfad qof kasta uu u baahan yahay inuu khabiir ku noqdo taas waa very important inaad khabiir ku noqotaa muhiim ah laakiin xirfadda inaad taqaanaa waxay ku iftiiminaysaa internetku waxa uu yahay fursadaha ka jira qaababka dadku dhaqaalaha uga sameeyaan waana xirfad aanad hal mar xitaa koobsan karin adoo internetka dibadda ka jooga laakiin aad u baahan tahay marka hore inaad hesho basically inta ugu muhiimsan ee foundationka ama aasaaska inta dambana si dabiiciyana ay u korayso markaa ogaalkaaga internetka ku saabsan soo xirfadda labaadi waa xirfadda digital marketing xirfadda saddexaad ee saaxiibayaal aan baran lahaa waxa weeye waa xirfadda la yiraahdo content creationka iyo xirfadda la yiraahdo brandingka oo wada socda content creationku waa inaad nuxur samayso nuxurku wuxuu noqon karaa inaad muuqaalo YouTube abuurto inaad qoraallo samayso nuxurku wuxuu noqon karaa sawirro iyo design inaad abuurto haddaba saaxiibayaal qof content creator noqon karaa ma jiro haddii aanu bilaabin
si aad content creator noqoto waxaad u baahan tahay xirfado hoose oo ka caawinaya inaad content abuuri karto sida video editingka, graphic designka iyo xirfadaha kale la midka. balse waxaan u sheegay qof kasta muuqaalkan daawanaya weligaa content creator ma noqonaysid adigoo xirfada content creationka dabadda ka jooga. macnuhu waxa weeye markaad rabto inaad content creator noqoto waa inaad markaa bilowdaa. haddaad rabto inaad muuqaal la samayso isku day inaad barato sida muuqaalka loo abuuro. telefoon haddaad isticmaasho ku baro, laptop ku baro, kadib markaaba bilow inaad content abuurto oo baraha bulshada soo geliso. marka aad sidaa u wado si dabiiciyan ayuu u koraya. inta ugu badan way jiraan dad badan oo xirfada content creatorka intaan isku dayin ka hor xirfada yaqaana, laakiin waxa laga yaabaa xirfadaha sida video editingka iyo graphic designka inay shaqooyin kale ku qabtaan. marka xirfada saddexaad u baahan tahay weeye waa xirfada content creatorka. waa tayga caawisay maanta anigu maadaama waqti hore soo bilaabay inaan maanta wax fara badan saaxiibayaal oo aan qabto bedeshay. waxaad kaloo u baahan tahay inaad branding ka barato. branding waxa weeye inaad codkaaga si gaar ah uga muujiso internetka, si internetka aad uga noqoto markaa business ama qof ka muuqda oo waxa weeye dadku arkaan. way kala duwan tahay inaad muuqaal la samayso iyo inaad branding noqoto. tusaale waxaan muuqaalkan kusoo gudbiyaa akademiyada Somalitech. waxaad idinku muuqaalkan ka daawataan YouTube channelka Somalitech. waxaad koorsooyinkeena ka barataan website-ka wax laga barto ee Somalitech. taabicineed waxa weeye waxaan baraha bulshada ku joogaa muuqayga iyo magacayga laakiin anigoo isticmaalaya magaca Somalitech. so branding waxa la yiraahdaa inaad internetka marka aad soo gasho aad markaas samaysato muuq iyo cod gaara iyo wax gaara oo lagu yaqaano. soo xirfada saddexaad ee aan qof oran lahaa barana waa midda. waxaan muddooyinka dheer ee sanawaadka saaxiibayaal soo bartay waxyaabo fara badan meelo kala duwan isku qaaday, laakiin waxyaabaha aan idin sheegay oo dhan waxaan ka dooran lahaa saddexdaas sidaan u bilaabi lahaana waxa weeye waxaan qorsheyn lahaa inaan sameeyo hal muuqaal oo YouTube-ka aan toddobaadka soo geliyo. waxaan isku day lahaa muuqaalka inaan ka sameeyo waxyaabahan xiiseeyo, wax ka aqaano ee ayga ICT-ga, online businessyada iyo waxyaabaha. waxaanan wadi lahaa online businesskaas oo nafteeda ka ballan qaadi lahaa inaan joogtayo muddo 1 sano ah, xitaa haddii inta hore viewska aan helayo iyo waxyaabahaas aanay noqon markaa kuwo iga caawiya inaan waxaan sii wado oo markaa i motivate gareeya ama i dhiirigeliya. haddaba saaxiibayaal guud ahaan waxyaabaha faraha badan ee aan soo bartay oo dhan waxaan kusoo koobi lahaa inaan aaladaha AI-ga barto sida loo isticmaalo si ay iga caawiyaan hal abuurka iyo fikirka iyo waxyaabaha la xiriira igu noqdaan caawiye caqli furan oo marka aan u baahdo aan helo. sidoo kale waxaan u baahnaan lahaa inaan barto digital marketingka si aan internetka si fiican uu iigu iftiimo oo markaa aan si fiican u kala garan karo. ugu dambeyn waxaan baran lahaa xirfada content creatorka si aan markaa muuqaalo idinla wadaago sida kanaad hadda daawanayso. haddaba saaxiibayaal haddii maanta aan dib u bilaabo waxa aan muddooyinkaas soo qabtay waxaan u baahnaan lahaa inaan barto 3 xirfadood. muuqaalka intan ayaan ugu talagalay saaxiibayaal inaan idinkula wadaago. haatan waxaan soo dhaweynayaa wax allaala wixii fikir ah iyo waxyaabahan idinkula wadaagay muuqaalkaad ka qabtaan. qaybta commentiga wixii fariimaad ku soo qortaan waxaan isku dayi doonaa inaan ka wada jawaabo. muuqaalka intan ku saafmariyaa waxaan rajaynayaa inaad wax ka faa'iideen. haddii dhacday muuqaalkan aan like noo saar. haddii muuqaalkan aanad waxba ka faa'iidin oo aan rajaynayaa muuqaalka waa dislike gareyn kartaa. muuqaalkan ka xigantan ku kulmi doono aniga iyo idinka waxaan rajaynayaa khayr. wassalaamu calaykum.